magaalada Beledweyne ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa laga soo warinayaa in halkaasi ay ka taagan tahay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan oo iska soo horjeeda taasoo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya kuwa daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ciidamada daacad u ah hogaamiye hore maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagar halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo aad u culus iyadoo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya la soo warinayo in ay goobo ama dhufiisyo ay ka sameysteen qaybo kamid ah duleedka magaalada Beledweyne sidoo kale ciidamo ka tirsan ciidanka dowladda oo ku sugnaa duleedka magaalada Beledweyne ay iska soo baxeen ama dib ugu soo laabteen xeryahooda ciidanka si halkaasi loogu sameeyo dib abaabul xooggan oo looga soo horjeedo ciidanka daacad u ah hogaamiye hore maamulka Koonfur Galbeed kuwaasoo ku sugan duurka magaalada Beledweyne muddooyinkii la soo dhaafay magaalada Beledweyne waxaa ka taagan xiisad aad u culus iyadoo dhawaan halkaasi ka dhacday على مسارك هجاميها مملكة الشيخ آدم مدوبي حل هالكاسي أي جارين مدحضة أسر صدالك كمديين رزراء حكومة فدرال كصوماليا حمزة عبد البر مدحبناها جمهورية فدرال كصوماليا حسن شيخ محمودة كواسو كقبلي مناسبة على مسارك أيضا كدا عبدو عبد العزيز لفتقرينا يا وحا أي ملاو وممسن أي كوكرا مدافع أدعوس يدور هالكاسي أي سميين ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka Koonfur Galbeed iska caawin xooggan xilli muddooyinkii la soo dhaafay labada dhinac ay wadeen abaabul xooggan oo iska soo horjeeda balse waxa haatan la soo warinayaa in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad aad u culus oo laga cabsi qabo in saacadaha soo socda ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo isku dhinaca iyo sidoo kale ciidamada maleeshiyaadka ee daacad u ah hogaamiye maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagar in halkaasi ku dagaalamaan xilli amniga magaalada si weyn loo adkeeyay iyadoo dhaqdhaqaaqyo ay ka socdaan gudaha iyo sidoo kale banaanka magaalada oo ay wadaan ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka Koonfur Galbeed ciidanka hogaamiye hore maamulkaas Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagar ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la soo warinayay in halkaas ay si weyn isku abaabulayeen sidoo kale xubnaha ka goostay ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ay ku biireen halkaas ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo culus iyagoona shacabka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Beledweyne ay uga digeen inay aqbalaan in fariisimo iyo sidoo kale dhufaysyo ay ka sameystaan gudaha magaalada Beledweyne ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya taasoo xaaladda si adkeynaysa xilli magaalada Beledweyne ay ahayd muddooyinkii la soo dhaafay mid amnigeedu uusan ahayn mid dhameystiran sidoo kalena ay ka dhacayeen weeraro ay geysanayaan ciidamada maleeshiyaadka ee Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagar taabacsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaana wali war rasmi ah ka soo saarin xaaladda iyo halkaasi ka taagan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ciidan ee iska soo horjeeda ay sameynayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale ciidamada daacad u ah hogaamiye maamulkaasi Cabdicasiis Laftagar kaasoo dhowr jeer weeraro culus ku soo qaadeen ciidamada u taabacsan gudaha magaaladaasi sawirro iyo sidoo kale muuqaalo lagu baahiyay warbaahinta bulshada ayaa si weyn la dhex maray kuwaasoo muujinaya in ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay gudaha magaalada iyo sidoo kale banaanka magaalada ay ka sameeyeen dhufiisyo halkaas oo ay ka dagaalamayaan si magaalada ay uga saaraan iyo sidoo kale banaanka ay kaga sugan yihiin ciidanka Cabdicasiis Laftagar xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud guud ahaan baa dalka ugu dhawaaqay goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha argixisada in laga xureeyo magaalada Beledweyne waxa muddooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa taliyaha ciidanka dhulka halkaas oo ka waday abaabulkii ugu dambeeyay oo lagu doonayo in kooxaha argixisada looga saaro deegaanada maamulkaasi ay ka arimiyaan